Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Maanta waxaynu joognaa Masar, meel la yidhaahdo Baaba oo ku taala maamulka Giza hoos tagta. Markii station ku yaala meesha uu soo galay wiilkan wuxuu gacanta ku wataa walaashii wuxuuna yidhi taliyihii markii loo gudbiyena wuxuu yidhi ilaahay ka sokow maanta waxaan doonayaa inaad xaqayga noo soo dhiciso. Waan awooday inaan wax kala sameeyo laakiin waxaan isiri qofkii waxa idinku sameeyay sharciga ku kala baxa. Taliyihii markii uu weydiiyey waa maxay waxa lagugu sameeyayna wuxuu yidhi walaashaydan yar haddeer muddo laga joogo 2 week waxaanu ku aragnay isbeddel aad u weyn iyo xanuun. Kabacdi markii hooyaday weydiisay oo tiri maxaa ku helayna waxay tiri saaxiibaday walaalkeed mamduux wiil la yiraahdo ayaa wuxuu ila ciyaari jiray nin iyo naag isqabo oo kale. Markii maxay haytay hooyaday u sheegtayna waxaan u imi halka si aad noogu aartid aad nooguna soo qabatid ninka. Kabacdi waxa loo yeeray hooyadii waxay tiri inantaydu haddeer muddo 2 bilood laga joogo waxay aadi jirtay gabadh saaxiibadeeda oo ay iskuul yihiin ay igu tiri waxaan doonayaa in aan wax la soo qaybo. Waxay tiri 2 bilood waa ku noqonaysay gabadhan ay haddeer sheegaysay Hana iyo walaalkeed mamduuxna asal ahaan waxaan iskala soo jeednaa Suudaan waxaan ku noolahay Masar. Markaa waxa dhacday bay tiri inaan iskaga sii dayn jiray 2 bilood markii ku noqonaysay wiigagii ugu dambeeyay isbeddelka ku arkay markii aan weydiiyana ayay ii sheegtay. Waxa loo yeeray mamduux wuxuu jiraa 20 sano isaguna asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa Suudaan sideen hore u sheegnay. Waxa la weydiiyey waxa uu gabadhan ku sameeyay wuxuu yidhi gabadhan iyada ayaaba iga dalbatay inaan ciyaarno sidii nin iyo naag. 2 biloodna waa soo noqonaysay oo yacni iyada ayaaba doonaysay iga heshay. Mamduux wuxuu yidhi aniga iyada ayaa waxay igu tiri marka ay walaashaa seexato waxaynu ciyaaraynaa nin iyo naag isqabo oo kale. Sidaa la ajligeed baan anigu maxay haytay gabadhan yar waxa ugu sameeyay. Iyaduna markii la yidhi maxaad adigu 2 bilood oo dhan aad ugu noqonaysay oo yacni u qarisay haddaanad waxan ka raalli ahayn waxay ku jawaabtay waxaan moodayay inuu i guursanayo maalmihii ugu dambeeyay markaan ku iri guursana maxay haytay wuxuu igu yidhi may anigu kuma guursanayo taasina beenteed weeye waayo gabadhan maba sheegin hooyadeed xitaa uma sheegin ilaa ay reerkooda arkeen oo yiraahdeen yacni gabadhan maxaa kaa siiya oo wareysteen ay uga warantay mooye maba sheegin sidaa ayay ugu noqon lahayd. Fiidiyogani waa fiidiyo gaaban laakiin muhiimad aad u weyn ayaa ku jirta taasoo ah in caruurihiina waalid haddaad tihiin aad u ilaalisaan daba gashaan dhulkay ku maqan yihiin aad ogaataan. Haddaan idinku iri daba gashaan maaha taa macnaheedu inaad noqotaan yacni iyo xitaa ilmuhu dabadda istaagin laakiin inaad caruurtiina ka warhaysaan waa wax aad u muhiima. Inuu horta adduunkii gabagaboobayna waxaad ku garanaysaa waxayna arki jiray caruuro ciyaaro dhuumaalaysi laakiin mayna arki jirin caruuro ciyaara nin iyo naag. Subxaanallah. Halka ayay qisadeenu inooga eg tahay. Waan rajaynayaa qisada inaad ka heshay. Fadlan channelka subscribe saar, gambaleelka furo, fiidiyowga like saar, una share garee asxaabtaada iyo familygaaga kuna share garee Facebook iyo WhatsApp waad mahadsantihiin. Salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.